naagaha la qabo raaliyoyin kala saaxiib naagaha garoobada waxaasni mudul gubta kama naxo oo waxay rabaan nolosha cariirig inay ku galiyaan ilmaha rafaadka lagu kornaa inay ku galiyaan nolosha yar oo lagu soo shaqeynaa ay ku quuri laayiin ninka iska fur gooma ka soo baxay soo qurux badnaan jirtay aniga waa lay biila niman baa i biilo ilmahayga alxamdulillah adeer baa u yeelay niman baa i koriyo shaafta ku koriya free stress goorma iska daayay soo qurux badnayso uma jeedid idin salaamay muuqaalkani wax kale uga hadli maayo gabadhani caqligeeda iyo baaritaankii ay samaysay bay ku ogaatay xaqiiqada taagan cadawga gabadha Soomaaliyeed ee la qabay marwada ah haddii aad rabtay inaad ogaato muuqaalkani ila daawo oo ila dhamayso cadawga koowaad ee leedahay gabadha Soomaaliyeed waa gabadh kale Soomaaliyeed ee walaasheed ah ee walibana garoob ah sababtu wax kale ma gabadhan kale ayadaa gurigeedii weysay Soomaalidana waxay ku mahmahdaa mudul gubtay kama naxo saa ay tahay gabadha markii ay iyada garoob noqoto waxaa la soo darista barnaamijyo badan oo markeedii hore marwo ay ahayd laga kaabin jiray ama laga caawin jiray sidoo kale markay hadda garoob noqotay bay waxay rabtaa labadii famil ee midoobay ama labadii qof ee midoobay ee familka ahaa bay waxay rabtaa inay ka dhex faa'iideysato mar walbana inta aysan ka faa'iideysanin waxay daristaa ama ay ilaalisaa ama ay searching ku samaysaa gabadhaasi nolosha ay ku nooshaa iyadoo iska dhigaysa inay la saaxiibta ka naxaysa noloshana ay tahay si ay u ogaato gabadhaasi iinaha ay leedahay kulama ay ogaato inta ay gabadhaasi leedahay ay waxay samaysaa in gabadha nolosheeda ay kaga faa'iideysato ninkaana ay ku dirto si guriga u burburo siday iyada garoob u ahayd inay garoob uga dhigto kadib maxaa dhaca way ka dhaqaajinaysaa qaarkood ay waxayba cilmigaba kaga faa'iideystaan ay gabadhaasi kaga caawinayaan isla yihiin gabadhan way ka cilmi dheertaa ama way ka caqli dheer tahayba ay waxayba sameeyaanba ninka u baarinimo falaya gabadha marwada qaba laakiin iyada marwada ah aan dareemaynin bay intay kaga faa'iideysato markuu ninka furo iyada u daw martaa markaas la guursadaa ciladan uma taqaana ayadaa fahmi weysay ninkeeda qaabkay kula mutacaamuli lahayd haddaba gabar ma tahay oo marwo ah ee la soo guursaday talooyinkan haddaad qaadato ogow gurigaaga adiga iyo saaxiibka ama familkiina aad ku nooshihiin cid idin soo dhex galaysa male intaanan talada ku siinin muuqaalkani ila dhamayso waatan gabadhan iyadoo ka hadlaysa soona daristay ama research ku soo samaysay axwaashan iyada ah waatan gabadhan ila daawada iyada ku soo samaysay research taasoo ay soo ogaatay guryaha waxa dumiyaba inay garoobada yihiin muuqaalkan ila daawada sidoo kalena tala bixinta muuqaalka kadib ayaan ku siinayaa ha iga dhaqaaqin leen waxa guryaha dumiyo waaba garoobada waxa u maleyn jir inay nimanka xun yihiin laakiin garoobada guryaha dumiyo gabaray hadaa reer leedahay naag garoob saaxiib daalad iska taa shimbir walba shimbirkiisa la duulo naagaha la qabo raaliyoyin kala saaxiib naagaha garoobada waxaasni mudul gubta kama naxo oo waxay rabaan nolosha cariirig inay ku galiyaan ilmaha rafaadka lagu kornaa inay ku galiyaan nolosha yar oo lagu soo shaqeynaa ay ku quuri laayiin ninka iska fur gooma ka soo baxay soo qurux badnaan jirtay aniga waa lay biila niman baa i biilo ilmahayga alxamdulillah adeer baa u yeelay niman baa i koriyo shaafta ku koriya free stress goorma iska daayay soo qurux badnayso uma jeedid naayaal waalin labada maraa shukaansi ma jiro waa isku baahan yihiin wixii lagu sii waa laga jaraa $1 ma helays ninka dhabsiiso naag garoobna warkeed ka bax garoobada waxaasiin sida ku noolfadan guursataa dhaanto ma sagaal guursataa dhaanto naayaa gabdhaha daaya garoobooyin waa laga sheekado waa saaxiibada aad u mahadsantiin muuqaalkani waad aragteen gabadha sida sharafta leh ay uga hadlayso dhibaatada qofka markuu isaga gala ayuu dareemaa dabcan waxaan idin leeyahay markaad dhibaatada dareento kadib inaad qoomamayso waxaa kaaga wanaagsan inaad talada walaalka maanta ka qaadato ee aad ku feegi jignaato inaadan gabar saaxiib ka dhigan isla mar ahaantaasina sirtaada aadan uga sheekayn waxaa saaxiib ka dhigataa waa hooyada iyo aabbaha waayo waa kuwa aanan kula rabin noloshiina ku feel garowdo sidoo kale waxaad iska ilaalisaa in noloshaada qof ay ku tiirsanaato taladana
qof ay ku tiirsanaato dunida waxaad imaaday adoo kaliya waxaana lagaa tegayaa adoo kaliya marnaba ha ku tiirin noolo kale oo aadan garanayn inuu cadowgaaga iyo saaxiibka midkood inuu yahay sidoo kale waxaa codsiga ah muuqaalkan inaad aragtidaada ku bixiso si haddii noloshan ay ku qabsatay aad taariikh ahaan nooga hadasho si qof kaloo walaala ee programkan ku dhici lahaa oga waantoobo isla mar ahaantaana inaad ii share garayso muuqaalkana like-ta iyo love-gaana siisaan isla mar ahaantaasina youtube-kayga iyo facebook-gaba followga iyo subscribe-kayna siisaan tani mar kale muuqaal noocan oo kale aan ku kulmi doono waxaa idin leeyahay rabbi subxaana wa tacaala guryihiina ha idin adkeeyo